caaqilku waa qofka maskaxda furan ee afka xidhan ayay Soomaalidu ku mahmaahdaa. Weligaa ma tijaabisay inaad meel degan oo bilaa buuqa gasho oo muddo 15 daqiiqo ah aamusnaato adoo isla markaana ka fogaanaya wax walbo ku mashquulin kara sida mobilka iyo wixii la mid ah. Waqtiyadaad meel degan joogto adoo aamusan waa waqtiyadaad si wanaagsan naftaada ula sheekaysan karto, waana waqtiyadaad afkaar fiican oo horumarka naftaada ka qayb qaadan kara kugu soo kordhaan. hadalkaagu hadduu yar yahay qof caqli iyo maskax buuxo inaad noqoto ayaad ku dhowdahay, sababtoo ah hadba intuu hadalkaagu yar yahay ayuu fahankaaguna badan yahay. Qofka aamusnaanta badan wax walbuu akhriyo amba uu dhagaysto si fiican ayuu ugu fiirsadaa oo u fahmaa. qof aamusnaan badan oo hadal yar haddii aad tahay ogow qof awood badan inaad tahay, sababtoo ah dadku inay si fudud kuu fahmaan ayaa adag. dadku ma ogaan karaan qorshooyinkaaga, ahdaaftaada iyo waxyaalaha tiigsanayso. waxay ku warqaadanayaan adoo qorshooyinkaagi xaqiijiyey oo ahdaaftaadina gaaray. haddii aad laakiin ka sii waranto ahdaaftaada iyo qorshooyinkaaga si aad ku gaadho way adkaanaysaa, marka aad gaadhee xaqiijisana qiimo badan ma yeelanayo. sidoo kale markaad aamusnaan badan tahay meelahaad ka liidato dadku ma garan karaan. qofka hadalka badan ee wax walbo maskaxdiisa ku soo dhacaba ku dhawaaqayase waa qof daciif ah oo si fudud meeluhu ka liito loo ogaan karo, kadibna si fudud loo dhaawici karo ama loo weerari karo markii la rabo. hadba intuu hadalkaagu yar yahay ayuu qaladkaaguna yar yahay, waayo dembi walboo la xiriira hadalka sida beenta, xanta, iskudirka iyo wixii la mid ah ayaa kaa yaraanaya. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut. qofka ilaahay iyo maalinka qiyaame aaminsanee rumaysan khayr ha ku hadlo ama haska aamuso. mid carabta ka midana waxaa laga soo wariyaa inuu yidhi, qul khayran taghnam aw ismut can sharin taslam. ama khayr ah ka faa'iido ku hadal ama sharka ka aamus ha nabadgeshide. hadba intuu hadalkaagu yar yahay ayuu cadowgaaguna yar yahay. Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa carab aamusan cadow ma samaysto. waxaan ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeenna maanta sheeko cajiib ah oo ku tusinaysa ahamiyadda ay aamusnaantu leedahay. waxaa la sheegaa in lagu xukumay 3 qof inaa lagu dilo mashiin weyn oo xadhig leh, xadhiggaas oo wata baal qoorta lagu jaro. 3daas qof waxay kala ahaayeen caalim diineed, garyaqaan ama lawyer, iyo aqoon-yahan ku talax tagay cilmiga fisigiska ama fiisiga loo yaqaano. haddaba inta la dilin ka hor ayaa loo ogolaaday inay kelmadihii ugu dambeeyey ku dhawaaqaan. caalimkii diinta ayaa lagu bilaabay oo wuxuu yidhi, allah allah ayaa i badbaadinaya. markuu sidaa idhi mashiinkii ayaa lagu sii daayey, laakiin markay qoortiisa u soo dhowaatay ayay joogsatay oo dilkii uu ka badbaaday. ninkii garyaqaanka ahaa ayaa lagu xigsiiyey, isagu wuxuu yidhi, anigu sida caalimka ilaahay uma garanayo ee cadaaladdan garanaya. markaasuu qayliyey oo yidhi, cadaaladda ayaa i badbaadin. mashiinkii ayaa lagu sii daayey, laakiin sidii caalimkii oo kale markay qoortiisa u soo dhowaatay bahashii ayay iska joogsatay. sidaas ayuu ku badbaaday isagna. aqoon-yahankiibaa haray. markii la weydiiyey waxa ugu dambeeyu ku dhawaaqayo wuxuu yidhi, anigu ilaahay garan maayo sida caalimka, cadaaladdana garan maayo sida garyaqaanka, se waxaan ogahay mashiinku inuu xun yahay oo wax ka qaldan yahay. xadhigga mashiinka waxba ahayoo hor taagan. haddaba mashiinkiiba dib loo fiiriyey oo loo hagaajiyey, waana lagu dilay nasiib darro. hadduu iska aamusi lahaa wuu nabadgeli lahaa. Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa aamusnaantu waa nabadgelyo. waxaa baraarujiniga ah hadalku ku dhawaaqay ninka garyaqaanka ee ah cadaaladda i badbaadin waa hadal qalad ah oo shirki ah, waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii ayaa wax badbaadiya. ugu dambayn, muuqaalku hadduu ku cajiibay laagta saar, asxaabtaana la wadaag wanaagga oo sheergaree. haddii aad kanaalka ku cusub tahayna hadda ku soo biir sidaad uga faa'iido muuqaal dambe oo faa'iido leh. wassalaamu calaykum.